waxaanu nahay haweenkii nugaal oo u yimi wiilashoodii geesiyada ahaa oo waxa weeye nugaaleed oo dagaal kasta oo dhacay dhinac taagnaa oo guul kasta oo dhacday dhinac taagnaa oo gardaadinayay oo waxa weeye meel aysan iyagu muxuu guulka keenin aan cid uga hormari jirin waxa weeye guuleystaan leenahay waan jecelahay waana ku faanaa wiilashayada waana ku faanaa waana jecelahay waxa weeye halkaan waxaan ugu wareejinaynaa in yaro geel ah oo maxay tahay 6 geel ah oo suuga ah oo waxa weeye waan ku soo salaanay salaan iyo muxub iyo jacayl baan ugu nimay wiilashayada waxa weeye kamana maqnayne waxa weeye hambalyada meeshaan la joognay waxa weeye waxaan la leenahay ma sha Allah barakallah guuleystaan leenahay hooyooyinkiina nahay waxa weeye wiilasha labada dhinacba wiilashayadii weeye guul baan la jecelahay waana in garab taaganahay naf iyo maal weyn la garab taaganahay dahabkaan ni gadaynaa dhulkaan ni gadaynaa waa in garab taaganahay waxaan jecelahay inaad guuleysataan nabad baana deeqda odayaasha nabadda ka shaqaynaya madaxweynaha intaba waxaan leeyahay wax wada hadal lagu dhameyn karo xabadii aan lagu dhameyn intaasaan leeyahay waxa weeye waana soo dhaweynaya taliyaha halka jooga oo waligiis Puntland waxa weeye xataa xubnihiisa qayb ku waayay waayo geesi weeye meel uu ka dagaalamay male meel uu guul ka soo hayn male dagaal dhacay uu u hormarin male cadawga Puntland ninkii cagta mariyay buu ahaa taariikhoona ku jira haddana u taagan anagoo ah haweenkii gobolka Nugaal una nimid ciidankayaga danab waxaan ula nimid wada tashi inaanu iswareysanayo xog waran maadaama warar hore nabadoonnadii naga soo horeeyeen si fiican ay u wada hadleen waxay ahaayeen sheegeen hadda ka hor nabadoonnada ay wada hadleen oo ballanti ka qaadeen annaguna waxaan idhi wax la og yahay madal la tagaay bal horta inuu afkiinu ku soo wareysto ciidanku intay nabadoonnada ka sheegeen in ka badan way naga ballan qaadeen la qaateen waxaanu nahay hooyooyinkoodii walaalahood iyo garbahoodii geedna ma baxo maxaan ku dhahaa caleen la'aan annagu ciidankan Puntland kaba maarano ama danab ha ahaato ama kuwa cusub hadeer madaxweynuhu soo tababarada ka saaray haadeen ama kuwa hore haadeen kama maarana ciidanka Puntland kuwa xagga ka soo jeeda oo madaxweynuhu Puntland oo dhan intuu ka soo Nugaal soo dhoobayna kama maarano kuwa kana kama maarano ciidankaas waxay ka dagaalameen Sochi Garmaan nimankii xaliyay bay ayano ka saaray shabaab kullaba kuna shabaab inta la inoo soo diray bay 3 habeen ka saareen masiibiga magaca maalin buu baxaa bar madow bay ku guriyeen madaxweynaha Puntland wuxuu kaga tagay 2 jeer ku noqday dagaal buu kaga tagay Puntland ku duntay aan lagu horan magaca wanaagsan qaado madaxweyne ciidankan waa ciidankaagii dawladda federaalka madaxweyne musharax baa u tahay inagu federaalkeenu ka midna meel aynu federaalka ka baxnay Puntland ma jiro waxa weeye hadda ciidanka Soomaaliland oo soo ka go'ay dhaqaale ka qaataan Soomaaliya waa aragto markii la soo saar dhaqaalaha budgetka waa ku jiraan Soomaaliya xaq baa loogu leeyahay lacagta naga qaato waanu mahad celinayna ciidamada taageerada mahad celinayna inta ka maqnay xaq inay siisaan ku bogaadinayna xaqa Soomaaliya waa loo sameeyay xasan sheekh male waxa ugu nimid xog wareys insha Allah waan isla fahanay wixii aan ugu nimid waan is xog fareysanay awal waa iska warhaynay waa ka warqabnay waana ciidan laga amaan heli jirayo waxa weeye iyagoo maxaan ku raahdaa tuutahoodii iyo qorigooda waxay ku amaansadaan xiradooda magaalada ma soo galaanin cidna ma dhibaan laakiin hadda waxaan arkaynay oo annaga dib nagu hayay ciidamadii maxaan ku raahdaa difaaciyada ku jiray baa magaalada lagu soo guray Nugaal waxay noqotay madaxweynuhu Nugaal wuxuu u arkay goob dagaal laakiin waa goob nabadeed weeye waana goobta maalin kasta dawladda laga hago hadday federaal tahay hadday Puntland tahayba marka annagu haddii aan haweenkii reer Nugaaleed nahay waxaan ku baaqaynaa nabad waxa weeye waxaan u hambaliyaynayaa gabdhaha gobolka Nugaal oo soo booqday wiilashooda halkan jooga oo guutada danab waa guutada Puntland ugu cadaraha badan oo ugu culayska badan oo meesha ugu adag oo la isku beego way lagu beego jamcaale maanta gurigiisa in laga xereeyo ma aha oo la yiraahdo gobol kala hadal lagaaga soo qaadaya waxay ahayd sansa amar laan inuu ku soo galo madaxweyne jamcaale inaad laascaano ama gobol kale ku hor joogtin ma aha ciidankana ilaa iyo daadisid buurtinla iyo Nugaal godan oo dhan oo aad tiraahdo laga waardiyeeyo ma ahan ee waardiye lagama qaban karo gurigiisana lagama celin karo gurigiisa jamcaale waa imaanaya annagu nabad baan rabnaa wiilasha ka hortagaya oo meel walba taagan iyo jamcaale waa walaalo naftiya neeftay wadaagaan waa madaxdoodii waa taliyahoodii waa ninkii gobol walba xoreyn jiray isagoo 15 jir xabad qaatay xubnihiisiiba ku waayay
برشي دقال بوليه يان ليس حستين جمعة ميلو سنبلنا نقولوا قصوهين ولقد كما سوهين إيا الرقص يا إنان بين السوشيغين جمعة ما أنت قادون كنا غرما يقبل كله نان رجع معلن كره وحير السيد عبد الله حسن markii nafu u yaabay sidoo ummadii waxa suuqayay oo qof walba meel ugu celinayay ana didiyo dalkii kaariyay xagee muslim ugu dugaala ana didiyo dalkii kaariyay xagee daarood ka raaca waxa weeye madaxweyne dadkeena nugaal joogna ama Puntland joogna oo harsanayno hawsh ama ciidankan iyo nabsiina ku dhicin yaayna ku dhicin ninkii yiri ana didiyo dalkii kaariyay aynu soo xirayno aynu nabad fidino annagu gabdhihii nugaaleed baan nahay nabad baan gacmaha ku sidnaa wiilashan waa kuwa yagi haddaan u tagaynaa annagu hooyadii nugaale hooyooyinkii nugaaleeda oo weligoodba nabadda ka shaqayn jiray waxaanu maanta u tagnay oo soo booqanay ciidanka daraawiishta danab oo fadhigoodu yahay ligle waxaanuna rabnaa inaannu ku wareejinno 6 geel sababta aanu ugu nimidna waxay tahay inaan wiilashayada u sheegno inaan wax dagaal rabin wax dunuuba rabin ee aanu doonayno nabad iyaguna horeyna odayaashoodii waa ula qaateen annagana waa nala qaateen waxaanu marka dawladda Puntland oo madaxweynuhu u horeeyo aanu ka codsanaynaa inay iyaguna nabadda qaataan oo Garowe iyo Nugaalba nabad lagu soo dabaalo annagu ma rabno dagaal annagu ma rabno qax annagu ma rabno colaad waxaan rabnaa nabad baan naas la nuugale inta waxaan joognaa duleedka magaalada Garowe dooxada Ligle waxaan la joognaa ciidamada kumaandoosta Puntland wiilashayada wanaagsan waa soo booqanay kis yaro waxaan u keenay awr yar ah annagu waxaan nahay hooyooyinkii Garowe Nugaal annagu Puntland oo dhan u hadlana dhibaatada Puntland ka dhacdana saamayso maadaaba qax iyo dhibaato iyo dhaawac iyo dhimasho ay keento dagaalka ka dhaca Puntland annagu shacabkii Puntland baan nahay hooyooyinkii baan nahay garabkaagaan nahay gaashaankaagaan nahay taa kuwana waa wiilashayadii ogow maxay ta kuwa haysatidoo xabadaha u soo dhiibisin waa wiilashayadii danam waa soo dhaweynayna waana garab taaganaha waana idin taageeraynaa